السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وين السلامي دمانتين كساقب قلياش أوركا مرت شرفتا حمناها LYD قفل بمجا عيسى مسك كيسان كسلامي ما أنت ومالين كلا أو فرحات أو وين ومعلمه كل ما LYD لقبت شري مالين كمدا كساقب قلياشها حفلة ورنتي مجال الرب كتير قفل بعمل ده رأس كسوح القامي dad badan oo hadda kamid ah teamkii qornayna ay ilaa hadda wali ay soo gaar laayeen oo soo socdaan marka dhamaantiin waa mahadsantiin qof walba magaciisa masabkiisaan ku salaamay waxaan rabaa inaan wax yar waqtiga ciriiri ah dartiis aan u soo koobo hadaladeyda saad ogtihiin ba ururkan LYD waxa la aasaasay muddo 3 sano ku dhaweeyo hadda maraya kulankan waa kulankii saddexaad ama sanad guuradii saddexaad waxaa noo weheliyay sanad guuradan oo ku cusub oo horay u jiri jirin inaan ku soo kordhinay doorasho xubnuhu ay dooranayaan awalna magacaabis ku imaan jirtay maanta marka barnaamijkeena waxa weeye waana kulankii waana doorasho ujeedada shirka waa labadaas waxa weeye marka doorashada iyo arrimaheeda waxaa sharaxay tiimkii ku shaqada lahaa ayaa sharaxay iyo sida loo coday doono haddaan marka usii galo kalimateynkayga LYD waxaa loo aasaasay waa ururka horumarinta dhalinyarada reer Laabaar waxaa loo aasaasay inay ninka la yiraahdo ka shaqeeyaan arrimaha deegaanka inay dhalinyarada daafaha dacallada ku kala fiirsan ee reer Laabaarka ah inay isku raajiyaan oo isku ururiyaan arrimahaas iyo arrimaha quseeya ayaa ninka la loo aasaasay ilaa haddeertaana waxaan ku jirnaa dabcan wadadeedii aan ku soconaa waxa weeye marka howlo badan hadda waa la soo maray wax badanna waa inoo dhiman yihiin wali la isma gaarin bilaa waan joognaa wali meesha aan ka soo bilaawno hoos agaarkeedii aan joognaa inkastoo waqti badan iyo howlo badan iyo arrimo badan ay noo soo qabsoomeen wax badan ay noo dhiman yihiin waxa weeye marka waqtiga ay barnaamijka daadiyaasha barnaamijku ay nagu yareeyeen awgeed anoo kalimateenkayga usoo koobaya waxaan rabaa inaan haddii khudbadeyda aan gadaal u dhigto haddii mar labaad la isii doono laakiin ujeedada kulanku waa labadaas la sharaxay waa kulankii LYD iyo arrimihii kaleeto oo la xiriiray doorashada muhiimadda ugu weynna maanta ay doorashada tahay dhalinyarada marka cod kale maanta codeynaysa hadii la yiraahdo waxaan ka codsanayaa inay xubnaha LYD sharaxan ay kala yaqaanaan inay noo dooraan noona xulaan codkoodana maanta noogu heliyaan qof walba oo dhalinyarada isku wadi kara horena usii daadii kara barnaamijka LYD intaas rabaa inaan kalimateyga ku soo gabagabeeyo waana mahadsantihiin dhamaantiin waa in salaam reer Laabaar saa u dhantihiin aadan ugu faraxsanahay inaan arko dadkii hore arag jiray dad ka badan maanta waxaan isleeyahay reer Laabaar dhan way soo qaxeen inta imaadeen taasna zaaid ah ugu faraxsanahay run ahaantiina 3 sano hadiiba inta dhan oo qof isku keenay intaan howlna lagu qabtay waxaan rajeynayaa 3 kale hadaa ku darsano inaan Laabaarna wax ugu qaban doono oo kaliya aan isku bar doonin run ahaantii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dadka heerkan soo gaarsiiyay dhamaantiina waa inii mahad celinaya qof weyn iyo qof yarba waxaan in leeyahay halkaas u taagnaada Laabaar oo aan caraf badan yahay run ahaantii ani mar raa igu dambeysay laakiin waa jeclaalaha inaan mar kale la ii tarxiilo aadana uma santihi alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh wa salaam dhamaan walaalaha LYD waardi walaal qof walba oo masabkiisa magaciisa ku salaamay marta sharafta iyo walaalaha ina codayaasha u diiwaan gashan LYD 3 sano ee LYD ka tirsanay aan macnaha maaragtay la soo waday waa mahad celinaya dhamaan mahad celin Allah iska leh ka soo koobna walaalaha LYD ayaa mahad celinaya mahad celin ka soo koob aniga khudbadeyda 3 qodob ay ku astaysan tahay ma rabo inaan sii dheereeyo ma rabo mid waa wax qabadkii aan soo qabanay iyo midda aan hadda ka bacdi rabno inaan qabano hadii aan doorataan waxa rabaa marka wax qabadkii aan soo qabanay inaan wax yar abaaro oo aadaan rabaa waxaan soo qabanay howlkan tookadii hore nala soo magacaabay magacaabisa ku nimid tookadii hore nala soo magacaabay waxaan ka ballan qaaday howlkan ballanqaadkii aan ballan qaaday waxa kamid ahaa inaan doorasho aan qof cod geey doono iyo inaan maaragtay howlaha deegaanka iyo waxaas aan u gacsiin doono labadii maado oo aan ballan qaaday labadiiba waa waxbaan ka soo qabanay oo doorashadii maanta waxa u jeedin wiligeed iyo allaheed inaan doorasho LYD aan maaragtay in qof la soo magacaabo maahan inta hool la keenay ay qof dooran midda kale aan rabaa ayadana inaan meeshaas aan kama istiifiyo waxa waaye wax qabadka kale oo ayadana LYD annaga wax qabadka LYD laba qodob oo noogu asteysanaay mid waa midaas doorashada midna waa la socodka deegaanka la socodka deegaanka saacad iyo habeen iyo maalin ayaa ula soconay si macnaha xaaladiisa iyo aqaabadiisa aan ula soconno baahidii ka soo yeertaa huna hadii aan ka jawaabi karnana aan uga ka jawaabno hadaan ka jawaabi karinna aan ula socono maadaama meesha dadka jira oo ay dad diirkeeniyo ay yihiin
ayadoo weliba aan muddo badan aan macnaha aan ka jawaabnay oo dhowr jeer aan ka jawaabnay oo la ogtihiin oon rabin inaan macnaha taas kusii dheeraado midda kaloo ayadana aan soo qabanay oo lagu macnaha oo la iloobi karin oo wax la iloobi kara aan ahayn waxay tahay in maanta LYD weligeed yahay iyadoo isdooran inaan anaga doorasho aan keenno middaas waxaan isleeyahay haddii aan mar kale i doorataan in ayadana arrintaas kale halkaas kasii dhammaan doonto mahadcelin qodobkii kale oo labaad wuxuu ku asteeysan yahay mahadcelin ayuu ku asteeysan yahay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan walaalaha LYD meel kasta ay joogaan ama reer Lababaar haddii ay joogaan deegaankii hadday joogaan dibadda hadday joogaan meel kasta ay joogaan inaan u mahadceliyaa rabaa si gaara marti sharafta ayagana naftirkooda maana ka tegin laga raali ahaado mahadcelin waxaa kaloo si gaara oo aad macnaha ugu mahadcelinaya guddiga ila shaqeynaya ee guddiga fulinta ah oo run ahaantii aan iloobi karin oo keligay aan haddii aan anagu wax soo hindiso aan keligay aan socodsiin karin oo ugu horeeyo gudoomiye ku-xigeenkii ninka la yiraahdo Faysal Ahmed iyo ninka la yiraahdo Xasan Yare iyo Fartuun Xuseen Faarax iyo walaashay Deeqa Macali Xuseen ruuxaantii kamaana tegin la taliyaha guddiga macnaha fulinta kamaana tegin guddiga shuurada sidoo kale ayaa naftirkooda kaalin lug leh ka geysteen in macnaha doorashada ay halkan ay timaado waxaan marka rabaa inaan hal mar codkiina idin weydiistaan rabaa maadaama aan doorashadii wixii aan ballan qaaday shalay oo ahayd inaan doorasho idin gaarsiin doono howlaha deegaankaana aan wax un ka taaban doono labadiina aan ballanta aan qaadana aan labadii midna aan oofiyey midna aan macnaha maaragtay midna aan oofiyey midna aan wax ka qabtay waxaan codsanayaa mar kale inaad codkiina isiidaan haddii aad codkiina isiidaan waxaan rabaa marka waxaa idiin qabaa inaan idiin sheego waxaa laba rabo moogta qof inta la iska doorto in doorta qofka uu iska taga laba rabo aniga waxaa idiin qabanayaa horta ilaahay naguma keeno guddiga shuurada wuxuu u asteeysan yahay waa xalinta khilaafaadka ilaa xisaabtanka guddiyada ka hooseeya oo ugu horeeyo gudoomiyaha guddiga fulinta run ahaantii si taaka ahaan guddiga fulinta ula socon doonaa xaaladiisii wixiisa haddii maaliyadda tahay iyo haddii fulinta gudoomiyaha ugu horeeyo si taaka ula socon doonaa waxa kaloon on si taaka ula socon doonaa xibnaha LYD ilaahay naguma keeno khilaaf haddii dhalato ayada naftirkooda waxaan isku dayaa inaan si dhimrin leh oo maaragtay aad u wanaagsan inaan iskugu soo jiidaan macnaha aad u rajeynayaa waxa kaloon rabaa wax kasta oo wax qabad ah oo LYD lagu horumari karo inaan maadaama aan ahay gudoomiyihii hore LYD ee guddigii macnaha shaqeynayo ugu awoodda badnaa aan gudoomiye u ahay wax kasta oo LYD lagu horumari karo oo aan u arko in lagu horumari karane waxaan rabaa inaan kusoo siyaadiyo waxaan inka codsanayaa mar kale inaad adinka haddii aan inka astahelo codkiina isiidaan haddaan inka astahelin hadda qofka inka astaheshay waa taqaani waa mahadsantihiin marka hore waxaan u mahadnaqayaa Allah subxaanahu wa tacaala marka xigta reer Lababaar oo dhalinyarada ay ku midaysan yihiin si sharafta leh qiimaha badan ay hadda u fadhiyaan oo hadda doorashada ugu jiraan ugu mahadnaqaynaa walaalayaal wada lagu qayb qaadan kara ayaad samayseen waa idin mahadnaqnaa waxaan leeyahay Shabeelle Diplomatic Group waa dad hadda cusub oo soo kacaya laakiin dhalinyaro maneen wax kastaan leenahay odayaan leenahay wiilaan leenahay gabaraan leenahay cid gaar ah naga tiro kooban ma jirto marka adiga laakiin dhalinyaro isku soo koobteen odayaasha iska reebteen haweenka waa reebteen balse dib ma lahaan oo kulli waa iftaan ku soo dhaweeyeen ku qaadan doonaa hadda la qadaro waxaan kaloo ka mahadnaqaa si sharafta leh asluubta leh akhlaaqda leh isu xushmeynaysaan isu dooranaysaan gudoomiyaasha u dooranaysaan wallahi waa nidaam aad iyo aad ana laftirkeena aan kaga dayan doono insha allahu tacaala haddaan Shabeelle nahay maadaama dad cusub aan nahay marka walaalayaal insha allahu tacaala waa isbiirsan doonaa waa iska warqabi doonaa inaan idin mahadnaqno oo aan idin ogaano oo aan xalkiin la soconaan meesha u nimid si sharaf lahayn kugu mahadnaqaynaa welcome walaalayaal anaga reer Shabeelle haddana waa soo dhaweynaynaa gacmo furan qalbi furan waa wixii aan dheerno aqoon waa idin kordhin doonaa laakiin adinka hadda meesha waa cursan muddo soo socdeen waxba in ka faa'iido doonaa sida hadda doorashada kaleento السلام عليكم ورحمة الله تعالى والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد ولا ريال كلن كان قروح بدن وسان أو سواء جستين وإن كم هاد علينا يا وأمانة نقول شرفتين مركا هدان هاي قلها هرمريتا شابل هدا مغسين شابل هذا هو شابل هذا دحماهن وحواي وقبل كشابل بقالبته يسوي هجودي مركا وحواي أنا وحنكسو جدنا دقموين بدن sida degmada mustaxiil qalaafe maadaama aan hadana aniga aan ka soo jeedo meel la yiraahdo saddex baar adiga laba baar tihiin laakiin hal baar aan ku darsaday saddex baar la yiraahdaa saddex baar la yiraahdaa marka saddex baarkaad markaa maqashiin marka waxaad garanaysiin in dadka oo saas kugu xiran yahay
oo dadkana dad kala dheer oo ahayn marka maasha allah marka kulankan wanaagsan marka annaga waxaa waaye maadaama aan nahay dad hadda unkamay oo laisku keenay marka idinkana in badan aad soo jirteen marka waxaan ka baranaynaa hadda doorashadan oo kaleeto marka waxaa waaye waa doorasho aad u fiican waan maqlaynay marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaan annagan inku dayarno maadaama aan nahay curdun haddana aas aan nahay marka aad iyo aad aan ku mahad celinayaa kulankan wanaagsan oo aad nagu sharafteen marka hadduu ilaahay yiraahdo marka waxaa waaye waxaan rajaynayaa inaan midnimo aan samayno oo aan midoowno maadaama aan nahay laba gobol gobolka Qorraxay iyo gobolka Shabeelle waa laba gobol oo deris ah marka saad ula socotiinbo marka waxaa la yaabaa nimankiina dhalinyarada inaan xoogaa saas u fahansanin marka laba gobol oo deris waaye deris haddii yihiin haddana waa dad wada dhashay waa dad isku deegaan ah waa dad meel ka soo wada jeedo marka insha allah waxaan rajaynayaa inaan kulanka ku xigo inaan midowga aan iskugu imaan doono aan midoobi doono magac kalena aan qaadan doono laakiin annaga hadda waxaan yiraahdaa Shabeelle golaha horumarinta Shabeelle marka insha allah aad iyo aad aan ka mahad celinayaa marti sharafta kale iyo dhalinyarada ururka dhalinyarada Lababaar aad aan ugu mahad celinayaa kulankan ay nagu sharfeen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أن لن يروي لما أنت وإن السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدي واحد بدنا كهلا مرة وهرت وحن شعلان لها ماشى تدكتيهين مارتي أورك لن يرى ريال لبار أنا أهان لين أورك لن يرى الدولة ديجان كالصومالي ده haddee taas idiin suurtagali weysan aad ahaan lahaydeen ururka dhalinyarada gobolka Qorraxay ama ugu yaraan aad haysan lahaydeen degmada Shilaabo waxaana idiin rajaynayaa sanadada soo socda inaad gaartaan heerkaas ah ururka dawlad deegaanka Soomaalida ururka dhalinyarada dawlad deegaanka Soomaalida ay ku midaysan yihiin gobolada kala duwan ee uu ka kooban yahay dawlad deegaanka Soomaalida maadaama hadda aad urur dhisantiin aad ku dadaashaan inaad gaartaan guushaas waxaa maartay bini aadamka ugu maartay horumarka u horseeda ama midnimada u horseeda ama waxbarashada ka shaqeeya ama nabadgelyada ka shaqeeya waa dhalinyarada dhibabka waxa lagu horiyo oo dabka iyo dhibka loo hormariyana waa iyaga haddii waxbarasho la'aan dhacdo waxay ku dhacaysana waa iyaga waxaan markaa idinka codsanayaa inaad horta u ololeysiin inaad noqotiin ururka dhalinyarada dawlad deegaanka Soomaalida oo qof walba oo deegaanka ka soo jeeda aad isku daydeen inaad soo jiidataan waxa hadda nala jooga rag ka socda gobolka Shabeelle adunkuna waxaa tiin gobolka Qorraxay ugu yaraan socodka soo socda gobolka loo deriskeeda loo doolo inaad soo heshiin isku day ugu yaraan 3 gobol aad noqotiin waxaan kala rabaa inaan maartay idinku baraarujiyo deegaanka aad ka soo jeedaan ee Lababaar waxaa ka jira culays fara badan oo ah xagga waxbarashada xagga caafimaadka xagga maartay horumarka dhinac walba leh waxa la idinka baahan inaad u ololeysiin oo gaarsiisiin qaarkiin waxa laga yaabaa idinka jaamacada fursad u helo dhigto qaarkiin uu dhigto iskuul secondary school uu dhigto qaarkiin maartay dugsi dhexe uu dhigto intaas oo dhan walaalihii aad ka soo tagteen way u baahan yihiin hadda waxaa la yagleelay oo maartay muddo dheer jiray ku guuleysanay in la furo iskool hoose dhexe oo la keeno macallimiin tayo leh oo jaamiciyiin ah oo ka yimid heer deegaan macallimiintaas waxay u baahan yihiin wacyigelin maartay iyo garab istaag wacyigelinta ma wadan macallinku u baahan laakiin dadka in lagu dhiirigeliyo inay waxbarashada u dareeraan waxbarashadu da' ma laha hooyooyinka baran kara aabayaasha baran kara dhalinyarada baran karta macallimiintu waxay ballan qaadeen qof kasta waqtiga uu heli karo kii galab heli kara inay galabtii 10 siiyaan kii habeen heli kara habeenkii ay siiyaan kii maartay galab heli subax heli kara midba waqtiga uu heli karo way noo ballan qaadeen runtii waa niman dhalinyaro ah oo aad u firfircoon waxaana looga baahan marka inaan ka faa'iideysano aqoontooda oo garab istaag u sameeyna xagga niyadda ah sidoo kale waa dad marti noo ah ka deegaan ahaan macallimiinteena macallinku wuxuu la mid yahay waaridka la dhahaa marka waa inay helaan qadarinta ay naga mudan yihiin haddayna nahay dadka deegaanka soo jeeda qadarinta ay mudan yihiin waxay tahay ku horta cilmigiisa inaan ka qaadano oo aan la fududeysan qof yar iyo qof weynba la isugu tagay si cilmigaas loo qaadan lahaa ayagana aan martin niyadiisu sameeyno hadday noqoto xagga deegaanka
hadday noqoto xagga gacan qabashada dhinac walba noqon karto ayaan jeclaan lahaa. waxaan ku celinayaa oo kale waxyaabaha aad in loo ololay u baahan waa isla ogtiin meesha ka timaadeen. nabadgelyadu waa muhiim, dadka in lagu wacyigeliyo qof walba inuu ka shaqeeyo nabadgelyo. horumarku wuxuu ka dambeeyaa nabadgelyada. haddana aysan ku ekaanin adinka keliya intaad ka timaadeen santarkii qabalayaashaad ka timaadeen kuwa deriskeeda ilaa aad gudbisaan. intiinaan oo kale ayaa joogtay in ka badan oo maartay qabalayaasha deriskeeda la ah ka yimid inaad is arursataan, xiriir la samaysiin, iskaashi yeelataan, ayaga laftooda aad dhidin waraakale aan samaysan urur. adduunka waxa wax lagu noqdaa waa isku xirnaanta. isku xirnaan la'aan waxa ma shaqaynayso. adinka waxaad leedihiin group yar, groupka waxaad moodaa dhaqdhaqaaqiisu inuusan badnayn, especially xagga contributionka ama dhaqaalaha. haddii aan dhaqaale la helina shirkan lama qaban karo. bacda siro biyaha haystaa waxay u baahan tahay lacag, hoolka la fadhiyo wuxuu u baahan yahay lacag, microphone-kan wuxuu u baahan yahay lacag lagu soo kireeyo. waxaasoo dhanna waxay ku xiran tahay adinka dhaqdhaqaaqiina iyo contributionkiina jeebkiina wax ku xiran way. ka qayb qaata insha Allah. waan idinku dheereeyay iga raalli ahaada. in yar oo way aragnimo ayaan idinku daraya. aniga reer Labaran intiina waxa laga yaabaa aniga hal idin ma aqaano, laakiin aabayaashiin iyo awooyaashiin aan aqaana. qaarkiina ugu dambeeyay waxaan soo moogaa anigu bilo sawiradan meesha ku dhagan qaybo badan oo kamid ah aan qaaday. insha Allah marka waxaan rabaa in si dhab ah loogu istaago in deegaanka wax laga bedelo. deegaanka wax ka bedelkiisu wuxuu u baahan yahay dhalinyaro isku xiran, hooyooyin isku xiran, aabayaal isku xiran. number 1 waxa ah nabadgelyada. insha Allah marka waan soo gabagabeynayaa. aad iyo aad aan idinku mahad celinayaa isxilqaanka aad samayseen. dhalinyaro badan oo idinkeeda lamid ama deegaanka ka yimid waxaa jiraan isxilqaanka aan kala samaynin. waxaan kaloo ku celinayaa mar kale dhalinyaradii heerkan soo gaarsiisay maamulka hadda haysay. أنا وحن تاجر إن مركز دي بالوقوع هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن سلام كبعدي وإني مهد علنا يا سعادي عاد والكوبي كرنا نكون مهد علنا يا أيضا مهد عليس كاسوي هاي سيدا قيمها بدن أو إنتان أو رير توبيا أو رير لا بارع أو إنت إسرائيل سوت مت سقراء وحليلي كرا أمر العركي وأدينك كهر العركي معه ساس على أدنى جد ayaad ku mahad celinaya. ilaahay baa mahad u sugnaatay bil aadamnimada aan ku mahad celinaya. intaas ka bacdi waxa inii sheegaya walaalayaal wadanka kulli waa wadanka u qoreetoon oo kulli aad ka dhalateen kana imaateen. anu marka in yar oo aan kaga dambeeyay inta aan kaga dambeeyayna hadda kulli waa nabadgelyo ka jirtay, laakiin intaanoo kale oo dhalinyaro ah oo inta isugu imaato nabadgelyo iyo wax qabad ka qiroono oo sidaan ka yeelo inay jirtana maba aan ogeyn mana ay ka jirinba. marka wixii Cabdiraxmaan walaalkii ka hadlay wixii hadda waxbarashada iyo qaybaheeda, laakiin waxaan ku bogaadinayaa sidaan aad hadda wadaan inaad laban laabtaan. walaalihiin hadda ka hor annagu waa ka yimid meesha hadda intaan saan yeelo oo jirto inay soo maqan tahay waan isku ogeyn, laakiin inay qayb qaadasho saan ay ku jiraan iyo marxaladan ma aanu ku ogeyn. anu saaka markaan meeshan soo galay hadda marmarka qaar waan hadli jiray, laakiin waxaan la hadli waayay farxad aan ka qabo calaa adnigeed sida aan ku bogaa calaa adnigeed. waxaan markii inii sheegaa wadanku walaalayaal bogaadintan iyo nabadgelyadan iyo waxbarashadan iyo hamigan waa waxa uu aad ugu baahan yahay 90%. inaad marka idinku sidaan aad hadda u fahanteen dadkii u fahansiidaan dhalinyaradiina u fahansiidaan laabaar kaliya maahan qabalayaashiisa iyo deegaanaantiisa aad u fahansiidaan taleefanaday leeyihiin kala xiriirtaan nabadgelyada iyo horumarinta aad sidaan u wadaan aad u gaarsiidaan. intaas aan ma taqaanaa in ku soo dhaweynaya in ku salaamaya. waxaan kaloo ku sii gudbayaa anoo hadda sii dheereeyay wadaadkii ninkii la yidhaha madaxweynaha wuxuu yidhi qabyo qofkeeda dhammaystirta. nimankii intaan soo gaarsiiyo u dul qaatay anu waa soo dhaweynayaa in mataqaanaa ay sidii kale u sii wadaan inkastoo aan mataqaanaa heel iyo heel lahayn. intaasna waa soo dhaweynayaa.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد وما سنتي دمان وجيدا قروح بدنا وجيدا دلنيرتان قبلها ويلش عاد قروح بدن مرت شرف كان بقولك بقول وما سنتيهن inkastoo aan isku fiicnayn mihnada mikrofoonka hadalka balse qoorta laga soo qabtay LWD waxay dhaheen maadaama ay ku jirto dadka u horeeyay waliba u qaabilsan LWD markii la baar dadku la baar markii la yiraahdo gruubku la baar kaliya ma ahan santarkii la baar ma ahane deegaanadu waa badan yihiin anuus waxaan u qaabilsanahay aniga Cabdirasaaq nin la yiraahdo reer xagaf reer xagaf dhurwayeela dhagax buur biluxduway عاديال لوقاس قلي إلا بالديك والله مركي لو فيري ديغانا هان يو مركي لو فيريو وودن آدو قيمة بدن الدون كان لغا مهل والله بلسه ما هي سنة وحا أمي يمسن باهيدا الدون كأمي يمسن عمان لابار كجيرتا وحي تاي وباهيدا أمي يمسن وحبرش على آن دالن يرى دي دالكو حقوباهي هاي دالن يرى أكعبو دالن يرى وحصوب برته كبعدنا wixii ay soo barteen dib ugu celiyo deegaankoodii teeda kale waa aragtaan wax xasuustaa wallahi waagaan yaraay waxa lii jiray cidaan reer hebel hal wiil ah wax u bartay hal gabar ah wax u baratay dadka lama sin waa ka sareeyaan sababtu maxaa waaye halkaas qof ama magaalka jiro ama wax bartay dadka uga sareeyaan sababtu waa macnaha waa meel ku tashtaan waliba waxaan ku tali lahaay hadda deegaanka waxbarashiisu aad ma ahan oo hadda waxbarasho sidoo sheegay وعبد الرحمن سيدو شيغي ما شاء الله وارين فيعان oo arin cusub waaye oo waxbarashada oo mar dhow la bilaabay macallinta timid laakiin waxaan ku tali lahaay gabadhii ku guursato xagga laga soo diro inta ku guursato hooyo hal cunug soo dirtaa dhahdo hal cunug soo dirso waxa loo baro cunugaas waa anfacaya xaqiiq waay cunug wax barto waa loo baxsanaa biri wiilkii inta ku guursado oo ku weynaado ma sha Allah oo waalta la soo diray ama qaraabada la joogi jiray hal cunug aaba ka soo wado wax u baro taasan ku tali lahaay وأنا ما سنتهين هل قفصي أنا هل كان كوي قرن من نما إيه هرمر إيه وحيده إشتانية اسكتش إن شاء الله سيدا كلا لا بارنا ولا مهوران حقيقة ولا مهوران وأنقينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا دلنيرada ka kooban rag iyo dumar iyo marti sharafta aniga halkaas iska fadhiyo waa li soo qabtay maadaama li soo qabtay wax yar ku saabsan waxbarashada ka hadla wadan walba waxa hormariyo dhalinyarada hormariyo SYL waa taqaanaa lidii sheegay ma intii iskuul soo dhigatay SYL waa dad waxay ahaayeen ka kooban aad u badneen 20 aan dhaweyn waxay ahaayeen dadkii Soomaaliya maanta meesha ay taaganta gaarsiiyay waa jecla dhalinyaro is arursato wax qabanaysa marka arko aad baa walaa u farxa waxa uu sheegayaan meesha kaliya ee qofka bini aadamka oo ka nool yahay waxbarashada laba baar ani maanta waxay degmo ku noqon kartaan dhigi karaa haddii la helo biyo caafimaad iyo waxbarasho waxay noqon doontaa saan rajeynaa insha Allah inay degmo noqoto ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu quraankiisa ku yiri qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun misamiin dadka wax bartay iyo dadka aan wax baran sidoo kale nin abwaana shaacira oo carabiya wuxuu dhahay al-ilmu zaynun li ahlihi wa kun mustafidan fi kulli al-mahabid cilmigu wuxuu qurxiyaa qofka bini aadamka waxaana noqotaa qof maalintii dadka wax ka faa'iido oo meelihiisa marmaro wax soo helo sidoo kale luqadda Ingiriiska qofkii yaqaan education is the best thing in the world waxbarashada waa shayga kaliya ee qofka bini aadamka ama adduunka ugu wanaagsan adiga waxa qurxanaa kartaa ama u noqon kartaa qof oo mas'uul ah ama qof ka duwan bulshada kale inaa wax baratid waxa rabto baro cilmi ilaahay baro cilmi dunya baro adduunka waxa la wax jaahil ka dar ma jiro jaahil waxa ka siiliitaan lahay qofka barta cilmi sixirka bartay jaahilka waxa fiican qofka barta cilmi sixirka oo aragtay diinta akbarul kabaa'ir ijtanibu sab'il mubiqat liir tadawada dambi ee ilaahay agtiisa ka halista ah waxa kamid ah sixir waxaana ka siiliito qofka aan waxba baran waxbarashadu muhiim waaye reer baar waxa uu sheegay dhalinyaradiina inta muqdisho ku jirto inta gurcaal joogto dhammaan Soomaaliya inta joogtay adduunka kala soo haray waxa leeyahay meesha kaliya ee degmadiina ka hormari kartiin waa waxbarasho dhalinyartiina soo xareeya waxbara iskuulada geeya jaamacadaha geeya masaajida geeya cilmi ha bartaan markaas kadib waa arki doontaan laba baar marka dii waxbarasho la geeyo oo dhalinyarteedu ay shaqeeyaan waxaan rajeynayaa insha Allah inay noqoto degmo weyn saan rajeynayaa insha Allah waa mahadsantiin ta'ala wa barakatuhu dhammaan dhalinyaradan quruxda badan ee aan bahawadaagtanahay
aad iyo aad ayaan u salaamayaa dhab ahaantii waxaa farxad ii ah maanta inaan ka soo qayb galo dhallinyarada reer Labobaar barnaamijkan quruxda badan ee ay qabteen waxaan u malaynayaa muddo hal bil ah ka hor ayaa maqla horta dhallinyarada nasiib wanaag waxaa kaloo iigu xigtay habeen hore oo la yiriniyo barnaamijkaas jira nagala soo qayb gal master tahliila igu yiri marka dhab ahaantii horta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dadka naga caqabada ugu weyn ee haysato waxa weeye aqoon la'aan iyo dhibaatooyin ay colaaduhu ka mid yihiin oo maanta dee dunida aan joogno aan la jaan qaadi karin dhallinyaradu inay inta isgaratay urur ku midoobeen haddana ay go'aansadeen inay dadkooda iyo deegaankooda horumariyaan wax lagu farxo weeye waana wax dhab ahaantii qalbiyadana taabanayo waan ognahay dadka naga caqabadaha waaweyn ee haysto maanta marka inaan helno dhalinyaro doorkii dhalinyaro ay mudnaayeen ciyaarayo wax lagu farxo waay bili aadanka waxa la dhahaa waxa ugu adag waa aqoon la'aanta mayn boqortiga ugu weyn waa aqoon la'aanta maanta marka dhalinyaro wax baratay oo fahansan caqabadihii deegaanka haystay oo ka yimid inay u istaagaan wax aad iyo aad noo dhiirigelinaya waayo waana idin garab taaganahay laakiin waxaan jeclaa lahay positionkan laga dhigo youthka in dee reer Labobaar oo dhan lagu bedelo laga dhigo bahalka la yiraahdo dadka reer Labobaar meeshaas in lagu bedelo maxaa yeelay dhalinyarada maanta waa ognahay inkastoo aad dhiirateen oo aad wax badan qabateen haddana maanta waxa ugu weyn ee dhalinyarada Soomaalida oo dhan haysto waxa weeye jobless way haddana dee adinkoo shaqayn inaad dad iyo deegaan dhan u istaagtiin caqabado aad u waaweyn aan ka hor imaanayo dhabaantii ururada bulshadana waa ka shaqaynaa waan ognahay caqabadaha na hortaagan marka waxaa meeshaan laga rabay reer Labobaar oo dhan inay ku midoobaan si aan u helno ganacsatadannada siyaasiyiintanada bahalka la yiraahdo dad badan aan u helno waxaan ku farxay maalin hore waxaan arkay caliyara meesha wuxuu ku soo qortay Labobaar banooni u dheelay malaha marka wax lagu farxo waay dhabaantii wax lagu farxo waay marka dee dadkaas oo kale inaan heli karno oo aan baalka la yiraahdo midnimo xoogan yeelan karno oo aan dhaqankiinaga heli karno baalka la yiraahdo aqoon-yahankanaga heli karno dhallinyaradanaga heli karno hooyooyinka heli karno oo aan baasha dhalinyaro bis lagu soo koobay waa jeclaa lahay laakiin waxaan u malaynayaa dayacaad dhankoodii aad timido dhalinyaradii bis ayaa is abaabushay ma raba inaan ku sii dheeraado hadal badan haan ma buuxsho waan idin garab taaganahay la jirkiinana waa nahay waana ku faraxsanahay shaqada aad haysiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu musharax gudoomiye mudane axmed sharaf qodax ereg yaa u codeeyey oo codka kalsoonida siiyey axmed sharaf yaa u codeeyey soo tiri gudoomiye ku-xigeenka iyo waxaa tirina gudoomiye ka saada guddiga doorashooyinka tiri doona insha allah hadda jininayaa codkan ayaan la isku hagran axmed gacanta waa taagi kartaa adigu waa isku codeeyeen guddiga dhammaan qof walba oo reer LWD oo inta fadhiya codkiisu leeyahay axmed gacanta waa taagi kartaa adiga okay musharax gudoomiye Leila Sheekh Umar oo u sharaxan gudoomiyaha golaha shuurada LWD ama Labobaar Youth Development yaa u codeeyey oo codka kalsoonida siiyey Leila Sheekh Umar xasha lillah bal gudoomiye Altiriya olmiya وما سنتين نتيجة أيوة كل واحد يقول دقة دورشين كLWD سيدا عوضك الله كله هلي قدومية أحمد شرف أو شرحنا قدومية قالها فلنتا LWD وعو هلي صدن إيوه سيداد عود علر تلتمي سنة مجرتو ساس أيونو كوبوليست صدح قف أياد ديد وعودك دانسي إن قدومية أحمد شرف ليلو شيخ عمر oo sharaxneed gudoomiyaha golaha fulinta LWD codka kalsoonidana weydiisatay ururka LWD waxay heshay 40 cod Leila hal qof ayaa diiday sheekadu waa soo xirantaa u maleynaa insha Allah